Filimkeenna wuxuu ku bilaabmayaa ninkan oo lagu magacaabo Jack Sparrow isaga oo gacmaha ku sito qalabkii tima jarista dhan. Wuxuu timaha u jari doonaa ama uu u habeyn doonaa tinta ku taala dufta eygan. Eygan waxaa iska leh naagtan oo lagu magacaabo Lucy. Xitaa wuxuu hagaajiyay dhammaan geedkii ku yaala xaafadda. Halkaasina wuxuu ku noqon doonaa nin caan ka ah degmada uu degan yahay. Naagtii eygeedii markay aragtay way farxday, waxayna ku tilmaamtay inuu yahay mid cajiib ah sida uu u soo jaray eyga tinta ugu jaray. Haddaba naagtan maxay samayn doontaa? Naagtan ayaa iskugu wici doonto dhammaan naagaha jooga xaafadda, iyada oo u sheegi doonto in ay soo kaxaystaan eeyadooda. Dhammaan naagihii xaafadda joogay waxay soo wada kaxaysteen eeyadoodii. Jack Sparrow oo meeshiisa taagan oo yaaban baa yidhi, maxaa samayn rabtaan hadda? Waxay tiri, waxaan rabaa inaad eygeygan timaha igugu jarto sidii naagtii Lucy timaha ugu jartay oo kale. Haddaba eygan tima jaristiisu way adag tahay ayuu ku dhahay. Hadda ayaan bilaabayaa shaqada. Wuu bilaabay. Eygan tinta markuu u jaro waxay dhihi doontaa naagtan anigana tinta ii jar. Sida aan u joogno Jack Sparrow tintii ayuu eygii u bilaabay inuu jaro. Si cajiib ah ayuu u jarayaa. Naagtii iyo dhammaan naagihii joogay agagaarka way wada sabcinayaan ee safka ku jiray ee sugayay in eeyadooda loo jaro. Haddaba naagtan ayaa aad iyo aad ugu faraxday markii ay aragtay eygeeda. Haddaba Jack Sparrow ayaa wuxuu ku dhahay, maad ku faraxday inaad aragto eygaada? Kabacdi ayay waxay ku dhahday, ma jari kartaa timaha dumarka? Markaa bay tiri, haa waan jari karaa buu yidhi. Hadda waxay fadhiisanaysaa meel, waxay rabtaa in tinta loo jaro. Aad iyo aad bay u faraxsan tahay maxaa yeelay waxay rabtaa in tinta loo jaro. Haddaba Jack Sparrow ayaa geesaha u leexinaya si uu u qiimeeyo tinteeda. Haddaba muuqaalkeena maanta filimkan ayuu ku saabsan yahay. Naagtii waa loo bilaabay tima jaristii, wayna ku raaxaysanaysaa oo ay yaaban tahay. Jack Sparrow ayaa qiimeynaya ilaa hadda tinteedii. Hadda ayuu ku bilaabay tima jaristii. Filimkanna wuxuu ku saabsan yahay timaha in la jari karo. Ninkan ayaa gacmihiisa ku wato dhammaan qalabkii tima jarista. Aad iyo aad ayuu ugu bobsiinayaa. Way ku faraxsan tahay in tinta loo jaro. Wajigiisana waa wada dhaawac. Dhaawacyadan waxaa u geystay qalabkan gacmaha uu ku sito. Naagtan aad iyo aad ay ugu raaxaysanaysaa in tinta loo jaro maxaa yeelay way jeceshahay. Naagahan ayaa dhammaantood saf ugu wada jiro inay tinta ka wada jartaan. Hadda Jack Sparrow wuu yaaban yahay. Tintii jaristii wuu u dhameeyay oo si qurux badan ayay ku soo baxday. Way iscajibisay ayada ahaanteeda. Naag kale ayaa ku xigto. Haddii aad jeceshahay inaan soo badiyo filimada noocan ah, dhaga commentiga waxay fariinay inoogu reeb. Haddii aad jeceshahay si loo edit-gareeyo inaan idin barana, muuqaal ayaan kasoo samayn doonaa. Naagtan ayadana tinta ayaa loo jarayaa sidaad u jeedaan. Dhammaan naagihii xaafadda ayaa tinta wada jaranayo. Way ku faraxsan yihiin in maanta tinta loo jarayo, wayna ku raaxaysanayaan. Haddaba haddii aan muuqaalkan halkan ayuu ku egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Balse filimka wuu sii socdaa ee daawasho wanaagsan.